yeah. Okay. Yad ahead. I know. Qabil like that one too. Okay. And waxaan rabaa inaan igala hadlo maanta hadduu ilaahay yiraahdo xagga ilmaha maasha allah maxaa la dhahaa ama cunuga ha yaraado baby hadda dhasha ha ahaado ama cunuga 18 jirba ha ahaado marka maamooyinka maxaa la dhahaa ilmaha haysto ama hooyooyinka ilmaha haysto hadduu ilaahay yiraahdo ilmahaada waxay ku xiran tahay sidaad u barbaarisid sidee u barbaarinaysaa ilmaha mustaqbalkooda sideen oo la korinaa waay ilmaha maskaxda kama korino hooyooyin Soomaali haddaan nahay wax naga fiican ma lahan maasha allah ilmihii waa la dayactiraa waa la joogaa hooyada gurigay u fadhidaa laakiin maskaxda ilmaha kama korino waxaan ilmaha maskaxda oo la korinin waxa waaye ilmihii hadduu wadan qurba ah joogo ama wadankeeniba aan joogno ama qaxooti joogno meel walba oon joogno waxbarasho way leedahay ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado ilmaha dhashay inaadan u kala eexanin inaadan wiilkan u eexanin gabadhan aadan u eexanin ilmihii inaad isku mid ka dhigtid ood wax wada bartid hadday gabar tahay inaad dhahdid hooyo alaabta ii dhaq way fiican tahay maasha allah gabadha waa inaad wax bartid alaabta inay dhaqdo ama guriga ku hagaajiso way tahay waxa fiican sida waxbarashada wiilka ugu la dadaalaysid gabadhan inaa waxbarashadeeda ugu dadaashid marka waxa waaye ilmaha mustaqbalkooda inaan kor u dhisno markay ku dhahaan ilmaha hooyo waxaan rabaa inaan noqdo inaadan kab u qaadanin oo dhihin war naga aamus ama adaa business leh waxaad gadaa maxaa la dhahaa dukaana ku furan dhar iyo shopping iyo waxyaalahaasad gadaa ilmaha dhashay ma rabaan inay waxaasoo kale ay noqdaan waxay u baahan yihiin wax kale inay noqdaan ama maxaa la dhahaa waxbarasho kale uu yeesho ilmihii ha ku qasbin kaale waryaa ilaga dukaanka ha ku qasbin waxaad suubisaa markuu ilmihii wax kuu sheegto uu ku dhaho hooyo saan iyo saanaan suubinaya waxaasaan rabaa inaan noqdo basketball aan rabaa inaan ciyaaro ama soccer aan rabaa banooni inaan ciyaaro ama maxaa la dhahaa lawyer aan rabaa inaan noqdo wuxuu rabo wax alla wuxuu ilmaha rabo inuu noqdo inaad dhahdid maasha allah hooyo dadaal haddana beri ka maalin uu soo kacaa wuxuu ku leeyahay waxaasoo kala wax kalaan rabaa ilmihii marka waxaa waa haddaad ruuxaas ma gaartid waxaas ma qaban kartid kan ma suubin kartid ama ilmihii dariskaaga oo dariska kula ahaad aad dhahdid ilmaha dariskeena ahbo maxamed basaasuu yahay oo reerkiisa saas waayo dhakhtar waayo adna waa inaad dhakhtar noqotid maya ilmaha dhashaan isku mid ahayn labada wiil oo adiga halka caloosha ah ka soo bixisa aadan isku mid ahayn ilmaha dhashay adiga ayaan isku mid ahayn nin walba wuxuu leeyahay personal gooni ahaan ah shakhsiyadiisa waa u gooni qof walbo adiga gabadhaada isku shakhsi ma tihiin adiga iyo wiilkaaga isku shakhsi ma tihiin ilmaha dhasho walaalaha isla ahaan isku shakhsi ahayn marka nin walba wuxuu leeyahay wax asaga u gooni ah iyo wuxuu jecel yahay inuu suubiyo marka waxaa fiican waalid haddaan nahay ilmaha inaan maskaxda ka korino ilmaha inaan dhahno wax walba waa soo qabsan kartaa wax walba waad gaartaa wax walba waad suubin kartaa laakiin ilmihii markaad gabar haysatid aad gabadhi dhahdid orjikada iigal oo maxaa la dhahaa alaabta ii dhaqo oo ilmihii yaryaraa oo hadda ka dambeeyey xambaare bahalkiye oo maxaa la dhahaa ilmaha ilaali ood waxbarashadeeda hoos aad ooga dhigtid aysan iskuul aadin ama dugsi aysan aadin ay guriga joogto
ay shaqadii hooyada ay lahayd ay gabadhi yareed ay qabanayso oon 10 sano gaarin oo maskaxda ay ka dhimanayso markaas gabadha markay waxaa waaye waqtigu wuu ordaya maasha allah waqtiga hadda jiro aad ayuu u ordaya ilmihii hadda maanta dhashaa 18 ay jira oo hadda la guursanaya gabadhi marka siday guriga u joogtay ee guriga u haaqaysay ama u bahalkeenaysay ayaa la guursanaya iyadana sida ay gurigeeda ku aragtay oo hooyadeed iyo aabaheed ama walaalaheed ay u isticmaali jireen ayaa ilmaheedana oo la isticmaalaysaa leeyahay adna suubi horumar ma jiro markaas horumar ma gaarayno ilmihii haddaanan maskaxda laga dhisin haddaanan horumarkoodii la ogaanin haddaan la dhihin waxaas iyo waxaas ilmaha waxay ku fiican markaad gaaydi garaysid markaad ilmihii aad saaxiib la noqotid oo waxay jecel yihiin iyo waxay necab yihiin aad kala ogaatid ilmihii aad dhegaysatid waalid haddaan nahay ilmaha ma dhegaysano telefoonaan ku hadlayna iskuulka ama markuu ka imaado ama meel uu ka imaado telefoonaan ku hadlay hooyo heesaas isaas war hooyo beele ordiga habaar iyo kab iyo waxaan loo joogin unbaan ku halgaadeena iyo naga aamus iyo saan wax laga dhegaysanayo mal ilmihii marka maxaa ka sugaysaa inuu wax kula sheeri karayo inuu mustaqbalkiisa wuxuu jecel yahay inuu kula wadaago lagama yaabo because ilmihii maskaxdiyan ka cunnay waxaan leenahay war soco orod waryaa hadday gabar tahayna naaya orod digsiga kari ama digsiga walaaq hooyadina telefoon ay kor fadhidaa no that is waxaa waaye wax aan ilmaheena mustaqbalkooda ku dilna waay ilmihii horumar ma gaarayaan maanta aday kula joogaan sidaa rabtaad u isticmaalaysaa bari ka maalin waa la guursanaya gabadhi waa lagaa guursaday sidii oo kale iyadana suubinaysaa ilmihii sidii oo kale ku suubinaysaa wixii way isdaba socdaan waa same wax horumar gaaraya ma lahan marka waxaan idhihi lahaa walaalayaal meel alla meelaad joogtiin adduunka dacalada aad ka wada joogtiinba haddaad daris leedahay xataa ood aragto cunug yar oo maxaa la dhahaa oo cunug yar oo dariskaaga oo dhibaataysan oon maxaa la dhahaa la silcinayo ha ku bahalkeen ha ku ilaalsan u tag la hadal ilmahan saan waa lagu weydiinayaa aakhira dariska ilmahaaga saan ha u gelin dheh marka ilmahaaga waa inaad role model u noqotid role model maxaa la dhahaa qof ee ilmihii ay gabadhaada ay ku farxaysay leedahay allayle hooyaday camal ayaan rabaa inaan noqdo allayle wiilku aabihii uu dhahaya alla aabahay oo kale iyo hooyaday oo kale rabaa inaan noqdo laakiin waxaa waaye ilmihii haddaanan la dhisaynin maskaxda laga dhisaynin oo hoos loo dhigaayo oo waxba lagu abuurin ubaxa marka waxaa waa ubax yaroo soo baxaayo haddaanan mar walba biyo ku shubin ubaxii wuu dhimanaya ilmahana waa ubax yaroo soo baxaayo waayo haddaanan la abaabulin ubaxii aadan mar walba aadan ilaalinin meeluu ka baxay ma kasaysid ubaxii quruxdiisii way dhimanaysaa marka waxaan idhihi lahaa walaalooyin meel walba aad joogtaan ilmaha dhashan ilaalsada ilaahay ha noo daayo kuwa wax lagu dheefan ilaahay ha nooga dhigo rabbiga raxmaanka ahaa maasha allah marka waxaan idhihi lahaa ilmaha yaan mustaqbalkooda lagu ciyaarin waa ubax soo baxayo waa wadanka ubaxeeni waaye aan ilaalsanayno waa maxaa la dhahaa waa qaranka naga dambeeya waaye marka waxaa fiican inaan ayakoo dhisan adduunka naftaan meel loo soo joogo lama ogo ilmaha inaan dhisno ilmaha inaanan aan lagu ciyaarin oon hoos loo dhigin inaad ilmahaaga mustaqbalkooda ka fikirtid inaad adiga mustaqbalkaaga ka fikirtid farasta aday kaa imaanaysaa adiga mustaqbalkaaga markuu dhisan yahay ood adiga wax garad aad tahay ayaa ilmahaagana wax garad ka dhigi kartaa marka wax walbaba aday kugu xiran tahay aday kaa imaanaysa ama hooyo ahow ama aabbo ahow marka maasha allah waxaa waaye ilmaha waxaa waaye waa maxaa la dhahaa shimbirta markay dhalato waa inay barato sida loo duulo sida
maxaa la dhahaa ay barto siday u falay garaynayso haddaysan baranin oo ama hooyadeed ama walaalaheed ay baalasha ay ka rifaan ma falay garaynayso sidii dhulka u taagnaanaysaa ilmahana waa ubax soo baxaayo waxaa waaye waa shimbir yaroo koraayo waaye maasha allah shimbirta in la ilaaliyo ilaa intay ka falay garaynayso marka baalasha ilmaha ayaan laga rifin baalasha ha loo ilaaliyo ilmaha si ay u falay gareeyaan I hope inaad understand garaysaan waxaan ilaahay inaad maxaa la dhahaa wax ka qaadataan hadduu ilaahay yiraahdo waxaan idhi ilaaha mar kale isku soo noqosho wacan hadduu ilaahay yiraahdo next video insha allah meel walba aad joogtaan waxaan iiga tagay khayr iyo barwaaqo salaamu calaykum شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا